waxa ugu quruxda badan ee leh nolosha ayaa ah jacayl. Mararka qaar noloshaada waxa ku soo biiri doona qof kaa jeclaan doona wax walba, farxadaaduna ay tahay farxadiisa. Jacaylku uma baahna inaad noqotid qof dhammaystiran, balse wuxuu u baahan yahay inaad noqotid qof daacad ah. Xushmad la'aan jacaylku waa lumaa, daryeel la'aan jacaylku waa caajis, daacad la'aan jacaylku farxad ma lahan, aaminaad la'aan jacaylku waa mid aan degnayn. Jacaylku maan waxaad dhihayso, jacaylku waa ficil aad samayso. dadka qaar noloshaada way ka fogaadaan, laakiin qalbiga marnaba kama fogaado. Jacaylka dhabta ah kama suulo qalbigaaga si kasta aad u kala dheeraataan. socodka ugu dheer dunida ayaa ah raadinta qof u qalma noloshaada. Runtii inaad wax jeclaato waxay kugu qaadanaysaa ilbiriqsi, balse qof aad jeclaatay inaad hilmaamto waxay kugu qaadanaysaa cimrigaaga inta ka dhiman. dadka sida dhabta ah isu jecel si sahal ah kuma kala haraan. xitaa haddii ay jirto boqolaal sababood ay ku kala tegi karaan, waxay helaan hal sabab ay ku wada joogi karaan. jacaylku waa dareen, indhihiisu waa dooqa, muuqaalkiisu waa farxadda, wejigiisu waa kulanka, deegaankiisu waa qalbiga, dhaqankiisu waa diinta, astaamihiisu waa udgoonka, awooddiisu waa kalsoonida, hamigiisu waa guurka, natiijadiisu waa ubad.